golaha midnimada Soomaaliyeed ayaa maanta shiraan caadi ahayn oo 3 maalmood ka socday ku soo gabagabeeyay dalka Norway magaalada Oslo. shirkaasi ay ka soo qayb galeen xubnaha golaha midnimada Soomaaliyeed waxa ay ka wada hadleen arrimo dhowr ah. shirkan oo lagu gorfiyay arrimaha golaha waxa lagu dhameystiray dib u habeyn lagu sameeyay golahan halkaasi oo lagu doortay gudoomiye cusub oo lagu magacaabo Maxamed Ducaale Ciise oo loo yaqaan Wiish iyo ku xigeenkiisa Xaliimo Sacdiye Maxamed Diiriye. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. runtii anigoo ah gudoomiyaha golaha dhexe ee ku meel gaarka ah magaciigu yahay Maxamed Ducaale Ciise Wiish. shirkan runtii ma aha shir maaragtay ku yimi si degdeg ah wuxuu ahaa shir mar hore loo balansanaa in la isugu yimaado ayna ku kulmaan sida ku qoran xeer hoosaadyada xeer hoosaadka golaha midnimada Soomaaliyeed in saddexdii bilba mar la guddiga farsamada shir isugu yimaadaan siday u qiimeeyaan waxyaabihii hore loo soo qabtay iyo in ay dib isula eegaan wixii dib u shaandhayn iyo nidaam u baahan. runtii shirkan waxaan u arkaa inuu arkay sidii loogu talagalay markii horeyso. mid labaadna guud ahaan haddaan ku sheego golaha midnimada Soomaaliyeed wuxuu u taagan yahay sida magacaaba kaaga muuqata mid mathalaya guud ahaan ummadda Soomaaliyeed kana soo horjeeda waxyaabaha aan rasmiga ahayn ee aan sharciga iyo nidaamka ku dhisnayn ee mar kastaba loo soo dhowaayo ummadda Soomaaliyeed meelna aan lagu gaarin had walbana meeshiisa taagan ayuu si cad uga soo horjeedaa golaha midnimada Soomaaliyeed. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وحل مسعدية حليم محمد ديرية. وحان كايمد دالك UK مقالة لندن وحانا نو يمد أوروركا قولها من نمد الصوماليات وآدي آده رنهانتي حقيقة كوين وحانا نقول من محيطي دالك نوروي مقالة أوسلو وكدعي ونسعونا يصدح معلومات شركان إنه واكلفة ديجي صدحات ودعة هورا لو قبتي سويدن dalka UK marahantaana iskugu nimid dalka Norway sidaad ka aragtaan magaca ururku wuxuu u taagan yahay ama waxa uu yahay waxa weeye run ahaantii ururka ka hadlaya ka turjumaya maxay ahayd midnimada Soomaaliyeed iyo magaca Soomaaliyeed 22 sano oo waxaan ku soo jirnay burbur iyo barakaca insha Allah biidnillah waxaan rajaynayaa ururkan inuu noqdo midkii aan noqonin maxay ahayd isu keena shacbiga Soomaaliyeed oo guul iyo barwaaqo ku gaaro. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaa kaloo goluhu aad uga dooday arrimaha siyaasadeed ee dalka Soomaaliya ayaa waxaa ka soo baxay qodobo dhowr oo ay ka mid yihiin in golahani uu si xoog leh uga soo horjeedo joogitaanka ciidamada shisheeye ee ku sugan badda iyo bariga Soomaaliya. sidoo kale ayaa golaha midnimada Soomaaliyeed wuxuu si buuxda uga soo horjeedaa nidaamka quursi wax ku qaybsiga ee loo yaqaano 4.5ka ama 4.5. bismillaahi raxmaani raxiim. salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. maantay walaalayaal golaha midnimada Soomaaliyeed waxa uu shir 3 maalmood socday oo ku yeeshay magaalada Oslo ee dalka Norway kadib markuu goluhu arkay nidaamka qaldan ee xafiiska qaramada midoobay u qaabilshan arrimaha Soomaaliya ee UNBOS uu ka wado gudaha Soomaaliya kuna dhisan nidaamka pick and choose ka la yiraahdo nidaamka waa ku dooray ee qaadada ah waxa uu uga digayaa dadka Soomaaliyeed goluhu inay ku katoomin shirqoolada siyaasadeed diimeed iyo mid dhaqaale ee loo maleegayo dadka Soomaaliyeed. qodobka saddexaad waxa uu ka soo horjeedaa joogitaanka ciidamada shisheeye ee ku sugan badda iyo bariga Soomaaliyeed wuxuuna u arkaa golaha midnimada Soomaaliyeed inaysan joogitaankoodu sharci ahayn oo aysan wax sharciya ku joogin dalkeena iyo baddeena. waxa kaloo goluhu ku baaqayaa in dhammaan ciidamada shisheeye ee dalka ku sugan si degdeg ah uga baxaan gaar ahaan ciidamada Uganda, Burundi, Kenya, Sierra Leone, Ethiopia iyo waliba kuwa Djibouti ka socda ee ku sugan Soomaaliya. golaha midnimada Soomaaliyeed wuxuu culimo awdiinka Soomaaliyeed ugu baaqayaa inaysan indhaha ka qabsan xaaladda faraha ka sii baxaysa ee dalka. waxaana goluhu ku boorinayaa culimo awdiinka Soomaaliyeed inay muujiyaan midnimo iyo isku duubni. qodobka 8aad golaha midnimada Soomaaliyeed wuxuu si buuxda uga soo horjeedaa nidaamka quursi wax ku qaybsiga ee inta badan Soomaalida loo yaqaano
nidaamka 4.5 oo waxa maanta dalka ka jirahay ay ku dhisan yihiin iyo midka federaalka ee lagu kala geeyey bulshada Soomaaliyeed. golahan ayaa la yiri waxa uu u taagan yahay midnimo, sinaan, cadaalad iyo qarannimo.